sanadkii afraad maalinkiisii koobaad muqdisho maanta waxaa ka furmay bandhigga carwada buugaagta ee muqdisho waxaana isku arkaya oo ku kulmaya qalinmaal Soomaaliyeed oo isugu jira Soomaali iyo dad cadaan ah waxaana ka soo qayb galay munaasabadan lagu daafurayay maalinka koobaad ee carwada bandhigga buugaagta muqdisho qorayaal da'yar oo Soomaaliyeed iyadoo tayada iyo tirada ay isbedeshay dhowrkii sano ee munaasabadan la qabanayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa kamid ahaa madaxdii ugu sareysay halkan ay yimid waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay dhaqan gelinayso in af Soomaaliga lagu dhaqmo oo wax lagu qoro waxna lagu akhriyo sida uu yiri walaal qof aynu uga qayb qaadanaynaa soo bandhigga buugaagta carwada buugaagta sanadkii afraad ee muqdisho oo aynu ku arkayno qalinleeda iyo qalinmaalka iyo akhriska iyo aqoontu waxa uu tarayo bulshadeynta iyo ummad kasta oo jirta iyo sida xadaaradda iyo ilbaxnimada facaweyn ee bini'aadmiga ama aadamuhu uu ku soo naaloonayay iyo qalinku waxtar nolosha bini'aadmiga uu ugu yahay xadaaradda iyo ilbaxnimadii qadiimka ah ee dunida meelo badan soo maray sida taariikhdu ka marakacayso waxa aasaas iyo saldhig u ahaa qalinka iyo akhriska iyo fahamka aqoonta thaqaafadda iyo ilbaxnimada in aqoontu inahagto in maskaxda aynu tuujino oo maskaxdu inahagto in wax akhris iyo tartan iyo qoraal iyo thaqaafad la soo bandhigo lagu tartamaa ummadaha horumar iyo horukac bay u horseedaa qof kasta inta uu akhriyo ayuu ka maskax ballaaran yahay qofka kale ee aan wax badan akhriyin in la dagaalamo musuqmaasuqa in la soo celiyo hiddasamidii dhaqankiisu banaa ee Soomaaliyeed qiyamkii qofka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ba adduunka ay ku lahayd qalinku dhiigle ma jiro waxaanu la dagaalamaynaa qalinku dhiiglaha waxaanu dhiirigelinaynaa qalinmaalka xalaasha sidaas oo kale waxaa isaguna goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow waxa uu isaguna ka hadlayaa doorka horumarineed ee bandhigyadan oo kale iyo gobolka Banaadir kobcinta qoraalka aqrinta aqoonta iyo maskaxdaba iyo waxisweydaarsigaba waa waxa kaliya ee bulsho ku horumarto rajaynaynana in maanta iyo maalmaha soo socdaba aad si buuxda uga wada qayb qaadan doontaan aqoonyahanka halkan idinla jooga waa fursad wax ka korsada qoraaga dhiirigeliya caruurta wax la akhriya hal abuurkana ha laga faa'iideysto sidoo kale waxaa fursad u ah maamulka gobolka Banaadir in dhalinyarada ama caruurta si loo dhiirigeliyo wax akhriskooda oo aan ugu mahadcelinayno Maxamed Diini iyo dhalinyarada soo qaban qaadisay in sanadkan fursad loo siiyey caruurtana wax loo akhriyo maamulka gobolka Banaadir sidoo taas ka duulaya waxaa halkan maanta idinla jooga 60 caruura oo weliba caruurtan soo xulnay yihiin caruurta aqoonta ah oo aan rabno in waqtigiinana aad siisaan waa caruur 60 ah la soo xulay aqoonta maamulka gobolka Banaadir gacanta ku hayana kamida oo gabdhaha kuwa maanta idinla jooga waa fursad dahabi u ah dadka wax qora sida ay sheegayaan qaar ka doon la hadalay in bandhigyadan oo kale ay ka qayb galaan cali aadan muumin goobjoog muqdisho